Soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan Soomaaliyana ma jirto laakiin dhalinyarada iyo shacabka baa waqti laga luminaya waxay maraysaa maanta 30 sano maraysaa Soomaaliland madaxdeedana wax walba waa sameeyeen meel walbana waa u galeen sida ku hilaayeen aqoonsi macnaheedu waxay tahay dawlad Afrika ka tirsan oo la kala goonayo ma jirto waxa yeelay Afrika oo dhan yaa fragile ah haddii la kala gooyo Afrika oo dhan baa kala tagaysa waxay leeyihiin wadan walba grievance iyo dib baa ka jira dib qabiil baa ka jira dib diin ayaa ka jira dib juqraafi ayaa ka jira waxa soo dhan anagu ma qabno hadaan nahay Soomaali ninka Soomaaliyeed oo raas Kambooni jooga hadduu saylac tago waa wadalkiisii way cid ka garanaysa ma jirto saas darteed waa ku khasbannahay inaan midowno inaan soo imaano waqti waa naga lumay waa dhab inta ay maqan yihiin annaga waxba naga maqan wax muhiim ah yaa naga maqan iyaguna ma istaagi karaan annaguna ma istaagi karno xaqiiqatan waxa kala hayo waxay tahay madaxda iyo siyaasiyiinta kala hayo ummadda shacabku waa dad waala ah wax dhibaato ah oo ka dhaxeeya malaha waxa loo baahan yahay madaxdu inay isu yimaadaan iyagoo u daneynaya mustaqbalka caruurtooda iyagoo u daneynaya